go'aan fiican buu ahaa muddo la sugayay marka dad baa soo dhaweynayna runtii waxaan u arkaa go'aan taariikhi ah lagu saxay khaladaad runtii dhacay oo ay gashay xukuumadda ummadda Soomaaliyeed 4 sano ka hor marka si weyn baan soo dhaweynayna waan u mahadcelinaynaa soo saaraha iyo guulihiisa go'aankan markii aad aragtay bal dareenkaada sidoo u noqday maxaa uu soo arkaa ururka guud ee ONALIF dareenkayga iyo dareenka ummadda Soomaaliyeed iyo dareenka ONALIF inta wuxuu ahaa dareen farxad leh runtii aan la qiyaas karin buu ahaa wuxuu ahaa go'aan ummadda Soomaaliyeed u hiilinaya go'aan xaqdarro iyo jariimo ummadda Soomaaliyeed laga galay ka dhaqaya buu ahaa go'aan Soomaaliyadnimo buu ahaa oo shacbiga Soomaaliyeed iyo taariikhdiisa u hiiliyay buu ahaa runtii aad iyo aad shacbiga Soomaaliyeed taariikh soo yaala buu leeyahay taariikh halgan buu leeyahay taariikh walaalnimo buu leeyahay mid diineed oo muslimiin buu leeyahay mid isku xirnaansho leeyahay waxaas oo dhan oo lagu gafay ayaa runtii lagu saxay wixii dhacayna loo gartay inuu ahaa dambi laga galay ummadda Soomaaliyeed iyo sooyaalkeedii oo dhan marka go'aan fiican buu ahaa runtii oo aan ummadda Soomaaliyeed hubaynay soo wada dhaweyn doonto waa tahay Cabdikariin si weyn ayaa bulshada Soomaaliyeed u soo dhaweeyeen go'aankan horena waxaa jirtay in ra'iisul wasaaraha ay aad kulamo ula yeelateen oo aad ka wada hadasheen arintan bal maxay si guud halgankiina u dhibaysay awal go'aankii hore ee golaha wasiirada ay qaateen go'aankaanse muxuu ka bedelayaa aragtidii ahayd in argaxisatiin ra'iisul wasaaraha horta yaan aniga is aragnay ra'iisul wasaaruhuna qayb kama ahayn markii hore dunuubtii dhacday wuxuu kamid ahaa markii waxaan u dhacay dad Soomaaliyeed ka xumaaday wixii dhacay iyo waxa ay xukuumaddu qaadatay ummadda Soomaaliyeed halgankeeduna ma ahayn halgan oo la bilowday halgan soo jireen oo taariikhi ah ahaa halgan ummadda Soomaaliyeed inta xortuna ay ku xorowday baa inta maqana lagu doonayay marka in la yiraahdo waa argagixiso koox gaara iyo ONALIF mayna gaar u taabanaynin ummadda Soomaaliyeed ee hadafkeedii bay taabanaysay oo loo gafay oo dambi lagu xukumay shacbiga Soomaaliyeedna dambi uusan ka badbaalan karin oo soo roog karin baa iyo ku xukumeen xukuumaddii iyo madaxweynihii ummaddu ay xilka u dhibatay waxaan la roogi karin waxa weeye haddii la yiraahdo qadiyadaas in loo dagaalamay halgamadan soo marnay dambi bay ahaayeen dadkii la halgamayay ee Itoobiya lagu xoreeyay qadiyadaha Soomaaliyeed iyo kuwii kale lagu xoreeyay inta xortaaba haddii la waxaan soo marnay dambi buu ahaa waxa lagu yeelan lahaa ummadda Soomaaliyeed magdhow dhibaatadii ay u geysatay dagaalkii 77 Itoobiya maxaa yeelay hadduu maanta dagaalka ONALIF xaq darro iyo dambi yahay argagixiso kaasuna argagixiso noqon lahaa maxaa yeelay waa isku hadal waa isku goob marka hore baarlamaanka Soomaaliyeed baa difaacay ummadda Soomaaliyeed oo badbaadiyay qaraarkii jariimadaha ee xukuumaddana waxaa saxay xukuumadda maanta jirta ee Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaare marka waa arrin runtii ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay soo dhaweynayso culayskuna wuxuu wada haystay dadka Soomaaliyeed buu culaysku wada haystay wax shakhsi gaar haystay oo ama Cabdikariin haystay ama ONALIF gaar haystay maahan ummadda Soomaaliyeed haystay waxa halgankana shacbiga Soomaaliyeed baa ku wada jiray ma jirin shakhsiyaad meel laga keenay oo kaligood halganka ku suntan dadka Soomaaliyeed si weyn ayay ku hadal hayaan maxaa kalifay aad isdhihi kartaa sidaan weyn Cabdikariin ugu saameyn u yeeshay bulshada dhexdeeda ummadda Soomaaliyeed waa ummad wada dhalatay oo iyadu wax kasta waxa isu qabto dhexdeeda xurguf yar yar ha jirta dad ogol ma aha in lagu xadgudbo sharafteeda iyo qiyamkeeda iyo karaamadeeda in dadkaaga moogtay gacmo shisheeye la geliyo cadow loo dhiibay waxa weey waa arrin Soomaalinimada taabanaysa iyo damiirka Soomaaliga iyo hanka Soomaaliga wax dhaawacaya weey marka ummadda Soomaaliyeed waxay u arkaysay qof Soomaaliya in maanta cadow Soomaaliyeed loo dhiibay inay tahay gaf ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay taabanaysa mas'uuliyadeedu marka taas laga wada diidiyay anuna waxaan qof Soomaaliya oo qadiyad Soomaaliyeed u taagnaa oo ku suntana halgan baan ahaa wax walbana ku soo waayay ani keligay ma ahayn dad badan
yaa ku soo waayay oo aabayaal iyo awowayaal iyo kuwa maanta jooga welina waa qadiyad taagan doodeeda iyo xal u helideedu oo berina iman karta oo ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysa marka waxay ku tusaysaa dadka Soomaaliyeed inuu wax wada leeyahay qadiyadan wada leeyahay halganka wada leeyahay walaalayahay ummad la diin iyo sharaf iyo dhalasho ay maaragtay ilaashata leh marka siyaabahaas oo dhan bay waxaana waajib ah si diin iyo waajib u haydba in laga dagaalamo yahay maxaa yeelay haddii cadawga loo dhiibo qof islaama oo dadka dadkiisa ay koox ku jirta ama shakhsiyaad intii laaf duubo qof haddii cadow loo dhiibo waa in lala dagaalamo waa sidaas sharciyan waa sidaas weeyaan in cadow iyo gaalada qof islaama loo dhiibayo runtii waa dambi khatar weey oo in laga dagaalamayo waajib tahay dadka Soomaaliyeedna waa hal dad oo wada dhashay marka sabab ay uga dagaalami waayaan ma jirin marka saamayntu waa marka taa weey ururka on alif waxa heshiis la saxiixday Ethiopia kadibna waa la waayay meel ay ka baxeen maxaa ku dhacay ururkii oo gaabiskan kalifay horta dawrku xilka asagu ma hayo waa urur mucaarada ma qaan meesha laga raadiyay laga soo waayay meesha tahay garan mayno maxamar baa laga soo waayay mise gaalqacyaa laga soo waayay mise jigjiga iyo hordaara iyo laga waayay mise halkee laga waayay cidda raadisay soo weyday waan rabnaa inay meelaha soo martay noo sheegto ururku wuxuu ahaa urur la yaqaan oo hadda la yaqaan oo weyn oo ummad Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxeeya marka hadii dagaal lagu bartay oo la leeyahay bargu dagaalamayaan arki jirnay hadda ma aragno meel wax ka dhacayaan dagaalkii waa laga heshiiyay xal baa la gaaray waxaan ku wada joognaa dawladdan la dagaalameynay dagaalku inaga dhaxeeyay wada hadal iyo xal aan isla gaarnay oo wali isaga laftiisu aan maartay dhamaystirnay deenu ku wada joognaa marka shaqadiisii ururka haysa deegaankii uu ka hawlgalahay ka halgamayeen uu joogaa anigu hadda waxaan ku joogaa Nairobi kuwa kale xamar bay joogaan kuwa kale Garowe way joogaan Hargeysa ay joogaan meel walba ururku uu joogaa marka cid u baahato way heli xarumo leeyahay xarumihiisa hata